habeenkii xalay tole hotel Dollar ee caasimadda Somaliland ee Hargeysa waxaa lagu soo bandhigay buug loogu magac daray Garwadeen kaasi oo qoray wariyaha caanka ah ee Cali Maxamed Ibrahim oo loo garoon yahay Cali Saxafi kaasoo ah wariye ka howlgala telefishinka qaranka sidoo kalena ah bara saxaafadeed munaasabadda bandhiga buugaasi waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda howlaha guud guryeynta iyo dhulka Abdullaahi Abubakar Cismaan xildhibaan Abdullaahi Moose xildhibaan Jaamac Macafa Commissioner Maxamuud Axmed Baarcad agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Yuusuf gudoomiyaha degmada Dacar Budhoq xubin ka tirsan ururka Hanmideeye abwaano profesoro aqoon-yahano gudoomiyaha Hafiyoko Cabdiraxmaan Caydiid gudoomiyaha Hafiyoko mas'uuliyiin dhalinyaro haween iyo sidoo kale gudoomiyaha Rajo Cabdilaahi Dahab iyo sidoo kale siyaasadda caanka ah ee Sucaad Carmiye mudan iyo marti sharaf kale oo munaasabadaasi ka soo qayb galay ana bilowgii hore halkaasi ka hadlay mas'uuliyiintii ka soo qayb galay munaasabadaasi waxaanay dhamaantood tibaaxeen wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Abdullaahi Abubakar Cismaan oo isagu gunaanadkii munaasabadaasi halkaasi ka hadlay ayaa si weyn ugu hambaliyay qoraaga buugan isagoo sidoo kalena tilmaamay ahmiyadda buugaagta ahmiyadda qoraayadu u leeyihiin dhismaha qaranka ayuu si weyn hoosta uga xariiqay waxaanu yidhi waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa ka soo qayb galo daafurka buugga uu qoray saxafiga weyn Cali Maxamed Ibrahim Cali Saxafi oo loogu magac daray Garwadeen aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa kaloo jecelahay inaan mahad celiyo Cali iyo dadaalka uu soo taxnaa ee uu kollay caawa aynu halkan u fadhino runtii waxa la yiraahdaa samirku wuxuu ku baraa inaad wax akhrido marka runtii waxaan jecelahay inaynu dhiirigelino anigoo jecel inaan dhiirigeliyo qoraaga buugan Cali kuna hadlaya kollay afkii xukuumadda maadaama agaasimaha guudna yidhi waxaan u daynayaa wasiirku inuu afka xukuumadda ku hadlo waxaan jecelahay inaan halkan ka qaadano Garwadeen baa ka sii qoto dheer waxaanu ku soo ururinay qiyaas ilaa 30 tilmaamood oo hogaamiyaha wanaagsan leeyahay 30 tilmaamood oo runtii aynu ku sharaxano marka dee hogaamin laga hadlo iyo wax hogaamin waxa guddig u ah oo runtii lafdhabar u ah oo tusaale u ah Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo guud ahaanba ambiyadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala Quraanka ayuu dee hogaaminta fiican kaga warramay aayado badan buu ku sheegay ahadiis badan baa jirta waynu ku soo ururnay buuga waa laga helayaa dadka scholarska aba aqoon-yahanada kuwa islaamka iyo kuwa kale ee runtii aan ahayn badda reer galbeedka iyaga laftigoodu aqoon-yahano fara badan ayaa qolobuug juhdiga buugga halkan lagu soo bandhigayo uu geliyay Cali Maxamed Ibrahim Saxafi Cali wuxuu sameeyay hawl weyn buu qabtay buugga waa buug baahi loo qabay maanta halkaynu maanta ugu baahi badannahay waxa weeye waa maamul wanaag Garwadeen oo waxaynu dhaqan u leenahay marka la eego shaqadeena rasmiga marka la eego maamulka wanaagsan miyigu yaala oo ninkuna wuxuu maamulaa reerka sahankiisa iyo hawlihiisa guud gabadhuna waxay agaasintaa reerka intiisa hoose ee loo baahan yahay in la isku dubarido marka Garwadeen waa ninka reerka noocaas isku hogaamiya abuurmaya wuxuu u baahan yahay ninku inuu garto mas'uuliyadda uu leeyahay iyo reerkiisa Garwadeen ugu noqon lahaa buuggu hogaamiyaha
amaba garwadeenka walaa 30 sifo oo buugga ku yaalla iminka intii aan fadhiyey aan akhriyay buu ku sifeeyey 30kaas sifaba qof hogaamiyaha waa wax sifooyinka aynu doonayno intooda badan inuu lahaado qof dhammaystiran oo bilaadan ah oo wada koobsanaya runtii waa yaryahay laakiin inta majorka ee muhiimka ah qofka aynu doonayno inuu bulshada iyo ummadda u matalaa 30kaas sifoon baa insha Allah ugu weegi doontaa cali tusaalayaasha uu soo qaateen la kaftamee buugga uu xoogay akhriyo maxamed xaaji ibraahim cigaal baa ku yar badan محمد عبد الرحمن عقال ما كل بدنه وقاميال كلهم فربنا وناكسنا وين صامره ويجونا رنتي وباهني بوجاج iyo de taariikhdooda la xuso wax badan la gareebo runtii ay mudan marka maxamed xaaji ibraahim cigaal runtii kala masuul mayno dadka wanaagsan ee Soomaaliland iyo guud ahaan Soomaaliba taariikhda iyo hogaaminta iyo sifooyinka wanaagsan runtii lagu majeerto وخالد يوسف حسن فانتاستيك تلفزيون كأريال هرقيسة